السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاله الصوماليات وإذن سلامي سيدة إيتين الحمد لله أنا نوقف عنها إذن كان سيداس إسكا بدن إذن رجينا إلهي بما حتى إسكاله إنا أسكسو نقني مركلا أنا وعافي ما قبنا الحمد لله الشكر الله waxaan wadaa qaybtii ahayd part 3 waan soo fiirsanay part 2 iyo part 1 waan soo fiirsanay waana ka heshayna arka wax badan ayaa fiirsaday ma sha Allah qaybta saddexaad waaye qaybtaan waa qaybta ugu xasaasi oo badan waaye qaybtaan ugu jeclaa waa qaybtaaneeta gabdhaha badana way ka heli doonaan qaybta saddexaad haduu Ilaahay yaraaha waan bilaabaneynaa qaybtii saddexaad qaybtii hore waxaa ku dambeysay ninkii inuu diyaar u ahaa inuu gabadha furo marka waxaa soo dhaxgalay family iyo masaajidkii ay ku xiraan dadka islaamka ahaa in ay mataqaana safe gareeyaan marriage kaas Ilaahay baa safe gareeya laakiin ayagana way isku dayeen in ninkaasi mataqaana gurigiisii uu haysto laakiin qofka rijaalka ah marka ay ka soo dhamaato cid ku celin karta ma jirto ma fahanteen gabdho waxa waa qofka asaga ayaa go'aanka iskale waxa la yiri nin meel u cadahay meesha kale ka madow marka ninka xiisihiisa waxay noqotay in uu familkaasi nolosha ka bixiyo family kale cusuban mataqaana oo yani booskoodi galiye oo kuwana booski 19 years uu soo waday inuu booska ka saar ilmihii iyo naagtiba waxaa dhacday markaa ninkan waxaa la familkiisa meesha deganay quraan hala saaro war maxaa ku helay quraanka la saaray maxay tahay wax xiis ayaa haysan kaane gabar dhehaysa qadka ugu jirto naagta maanta maxay ku karisay qaylada badneed macaano maxay naagta ku karisay xalamaan saaxanin roo kuga soo riyooda habeenkii saq dhaxbaan soo kacaa hadda waa ogtiin hadda xiisooyda markay socoto waxyaabaha lesdaha waxyaabaha lesdaha hadda waa ogtiin ya flashback oo noqdo fiiriya bariga xaajiga shukaansanaysa sida isdhihi jirteen bal soo xasuusto bal gabdho marka waxaa dhacday xaaji la dhahayo mataqaana xarim maxaa lagu siiyey naagta qaylada badneed xaajigu maxay ku siisay yaa le marna haddaan gacanta kugu dhegalahay aniga mataqaana cirkii dhulka waa kaa qaadanahay soo mogid xabiibi yaa asagana uu leeyahay yaa xabiibi yaa xayaati runtaa waa gacanta igu dhigilay tan way dhibtay soo bood qayl la socoto markaas si baxa waa lagu qaylay markaas soo galay waa lagu qaylna markaas qayl la sheegan faanteen marka hadii xaaji sheekaas ay ku socoto oo sidii mataqaana ismuuriga marka cabaysido kale ay ugu socoto ma cid u jeedaba marka cidii hore dhan way ka madowday ma faanteen dhinaca cidii hore islaanta gabadha quruxda badan halkaas taagneed ilmihii yar yar qobolka ahaa waxay noqdeen ku lahayd dhinacoodii wax madow ya aba caashada cusbeed waxa waaye dhinaceeda waxa ka soo kacaya light ma fahanteen ya light basaas ugu soo kacay aan kula iyo ya email udgoon badan email yani waxba istusinay ma fahanteen idinka in la wax xiisada aan kula qofka uu xiisaha hore waa saas waa ma fahmino intaadi hore in laga madoobeeyo ma fahanteen marka waxaa dhacday ninkan markay dadkii familkii iyo masaajidku istaagay in quraan la saaro la isku day inta uu xirto quraanku waa badiidan ana waxba ma hayaan dhahay hadii waa runtiiso ninkan waxa haya ma leh ma fahanteen idinka waxa haya ma jirto oo waxa haya jacayl hataa ma dhihi karna jacayl no jacayl ma yaqaanaan ya jacayl ma yaqaanaan ma fahanteen jacaylkooda muxuu yahay waa xiisa ma dhihi karna kan jecelnaa taas qool xiisa waa jacaylka afka jacayl la iska dhaha jacayl sidaas ma aha jacaylka sida idinku u qaadanaysiin taas ma aha taas not a love
ma fahanteen is waxaa anaga ugu yeerina hadda xiisa waa is xiisadan way dhacayaan ma fahanteen waa wax iska dhacaya wax yar oo muddo yar ku kooban waa wax iska dhamaanaya marka waxaa dhacday ninkaani quraankiina inuu diido dadkana inuu dhageysan waayo dadka marka waxay dhaheen markii la isku dayay uu ninkaan soo taagan yahay arkeen faraha laga qaaday halaha aan fiirana bal gabadhina way sadkaysa waxay tiri ninkaan wuxuu diyaar u yahay ayaan diyaar u laahay marka ma soo ceshin kari bay tiri waxaa la yiri xoolo ka socdo waa soo ceshin kartaa xoolaha waxa xawayaanka waa marka xawayaanka dhaqaaleynaysa sidoo kale Soomaalida waxaa la horta been kuma mahadala laakiin been way sheegtaa xoolo ka socdo waa soo ceshin kartaa marka raacay sidoo kale ma taqaana xoolaha ee soofaan ban ay aadan duurka waa soo celin kartaa laakiin bini aadam ka socdo ma soo celin kartid qofka bini aadamka markuu go'aan gaaro oo ku dhahay this is it I'm done with you markuu ku dhaho ma soo celin kartid marka karaamadaha iskaga haleyn afant karaamadaada ha ku baabi'inin ina isku did ina barid no ha barin hit the road ya ilaahay kuma bujiyo samagud dhaxdana xiraan ku leeyahay haad shaawar qaado dad gabdha waa maqlaysiin faanteen waxyaabaha noocaas oo kale is going on you know so you never know what happened with you your future kaada ma ogid laakiin sida ugu bixi lahayn yani wax yar oo tib aanay ka siinaa just haad shaawar qaada ma fahmino gaarigaada ka wada bahal oo kiyaalo madowna ka xiranba shaakada maxay tahay laba bir la wada ma fahanti wartii waa la furay lagu dhahayaa what's the big deal ilaahay muxuu u keenay furinka labada isfahmi weyse inay mataqaana banaankaas ku kala yaacaan ma fahanti week ugu horeeya social media ma aragteen qofa waxaa la wadaa week ugu horeeya dad next day another one la wadaa ma fahmino ku kala la wadaa ma fahmino week ugu horeeya 3 bir lagu sheegaale tii waa la furay lagu what's the big deal that haad shaawara ka qaadanaysa oo kiyaalo madow baa ka xiranaysa ayaan ku leeyahay ya awal buu labisanaysay taada labiskaasi labisanaysay ka kala qosita waxa ku leeyahay magaalada aad ku shidnaata baa ilaahaygaana bari ilmaasna ku kurayaan ajra adigana wadanaaba joogtaa ma taqaan wax kasta ka sabaysan kartid gabar wax baratana way ahayd markina so inta stepka ay idin siina ma taqaan you never know what will be happening in the future Allah knows that so waxa dhacday marka ninkii inuu lawyer hire garaysta oo gabadhan waa fur raba aniga lawyer ayuu hire garaystay gabadhan waa ogtiin lacag ma haysato waa ogtiin gabdho 19 years aynin iyo ilmahaystay hays garanayso halkaas u fadhiyo canjeeradooda iyo iskuulkooda iyo mataqaana isbitaalkooda iyo meeshuu saaxan lahaa inay dhaqda iyo inay gogasho ka bedeshay waxaasay ku jirtay haday we all know that daas shaqada anaga wada hayna soo mogadin anaga hayna daas shaqa marka waa dareemi karnaa waxaa dhacday marka ninkan inuu mataqaana lawyer oo high class inuu hire garaystay oo wuxuu dhahay naagtan lawyerku uu sheegay naagta inay weligeed shaqaysanin mataqaana weligeed ay shaqo aadan oo careerkeeda ka halaysan nimanka Soomaaliyeed waxay u maleeyaan gabdhaha haday shaqaysan inay careerkooda ka halaysan yahay wadanka careerkaada ma halaysna careerkaada waxa halaysan qofka baari careerka soo wax soo xaaba soo simay careerka ka halaysan gabdhaha haday shaqayn shaqo waxay ku weys gurigaada kaaga shaqaynaysaa abow daas shaqo waa taas soo mugdin marka waxaa dhacday inuu naagtan weligeed ma shaqaysanin waxaan rabaa guriga inaan ka qaato waxaan rabaa ilmaha inaan ku wareego waxaan rabaa gaari ay wadatan inay isii soo dhahay lawyerku u sheegaya okay lawyerku wixii uu ka qoray waa la baxay maxkamadda la tagay gabadhan waxay tiri aan lawyer ma haystii tiri goos lacagan ku hayr gareys ma haystii dadka dawladda waxa lagu qabanayaa lawyer free lawyer jirto oo dadka oo waxba haysan in loo qabto free lawyer ka la sii marka waxa la adeeg maadaama waxba haysan free lawyer kana lawyer ku noqonay lawyerkeedii iska tagtay meeshii iska istaagtay ninkan high classkiisa lawyer oo meesha soo dhigtay marka labada qof isoo dacweeyaan qofka dacwada ugu horeysay waxa la leeyahay fur hadii ninkii dacwada u furay naagtan wuxuu weligeed ma shaqaysanin waa islaan aan career lahayn career ma haysato waxaan rabaa ilmahayga gurigayga gaarigayga inay igu soo wareejisaan rabaa aniga judge-kii wuxuu weydiiyay meeqaasna wada joogteen 19 years wada joognuu dhahay meeqa cunug isku haystiin inta soo cunug isku haysanaa isku dhalna labadeen oo hadda maxaa dhacay hadda wuxuu dhahay waa ay iga dhamaato dhahay inaan si nooladan si wada marbi u dhanaagtan masaas baa oo ay shaqo weligeed ma aadin mayu dha shaqo weligeed ma aadin
okay ninkii qalin buu haystay qalinka uu dhigay wuxuu dhahay calculator halii keen u dhahay qaybta waxa ku dhahay alla qaybtan gabdho badan waxay farxi doonaan bugoos aniga waa ku farxay qaybtan gabdho badan ku farxi doona ninka qalin wuxuu ku qorayay qalinka dhulka u dhigay ninka jaajka ay gabdho wuxuu dhahay calculator halii keen u dhahay calculator kala soo qabtay ninka jaajka uu ku dhuftay 19 years waxay qabanayso ku dhuftay dag waxaa la yiraahday ma ogtahay laha America inta child care lacag ku baxdo oo dadka ilmaha haystaan child care lacag ugu baxdo ma taqaanaa la yiri abu Soomaali inuu taagan isoo fiiraa si fiicnaha tagtaagni inta dadkaas waxaa la yiraahdaa child care ugu baxdaa la yiri oo lacag ah you can imagine Allah ma fahanti gabadha markaa leedahay la yiri weligeed ma shaqaysan kariirad male markaa leedahay kariiradkaada ku dhisaysi alla cuntada ayaa karinaya la yiri ayadoo dhahay ilmaha iskoolka geenaya la yiri ayadoo dhahay yaa isbitaalka geenaya ayada dharkaada yaa ku dhaqay ayada guriga markay cuntada ku siinay ayada soo adiga xaqaada gabadhaas inta soo shaqo sameynaysa adiga xaqaada shaqo yani baar kariirada ka tamiya hayo dhahay shaqado meel out me shaqo guriga ay joogtay maxay qabanaysa sheekadaas ma jirtaa la yiri abo sheekadaas sheeko soconaysa ma aha la yiri waxay ka haysiyaa la most beautiful job oo qof oo hooyo ay sameysay ay ka haysiyaa la yiri ma fahantay ilmahaas ee waxaa la isbitaalkoodii iskuulkoodii ayada markay meeshaas joogin oo maanta meeshaas ka bixiyaa la yiri ayada eeba joogina la ama ay dhiman lahayd how much money you will pay yaa la yiri ilmahaas cid ku heynaysa iyo cid isbitaalka ku geynayso iyo ninka guriga kaaga shaqeeyo cuntada ku karnaa ma ogtahay la yiri inta lacag aad ku bixin lahayd la yiri ya wallahi nimanka Soomaaliyeed waxaan ka yaabaa inay aqli qabin war aqligooda waa zero meeshaas ma la yaabteen wiilka Soomaali nimanka dhan ayaa wada dhihini ninka bal wiilka Soomaaliga bal wuxuu Ilaahay baa idin ku dhaari oo ku fikiray ya bal fiiri laakiin alxamdulillah hadii wadan waxaan joognaa aan ku dhayaa hadu Soomaali joogi lahaa wiilkaasi gabadhaas waa la baabin lahaa soo ma gudin dab talagu dar lahaa aan ku dhahaa alxamdulillah waxaa la yiri gabadha shaqay haysiyaa la the most beautiful job oo qof wali aadan uu qabtay haysiyaa la yiri adiga xaqaada laakiin hadii ka tahay la baar kariirad aniga xaqeyga ma aha la baar kariir shaqada ugu muhiimsaneed haysiyaa la yiri ma fahanti intaas oo shaqaynaysa waliba waxaa la u dheeraa la yiri shaqada aad shaqaysa banaanka aad ka soo shaqaysidoo dhahay ee waa shaqo dhamaato dhahay ayada waxay haysuuday most beautiful job of very hard job oo shaqada guriga iyo ilmaha ma dhamaato dhahay waana runtiis shaqadan guriga ma dhamaato Ilaahay baa in ku dhaariyay subaxdii waan soo kaceena shaqaan bilaabina another day the same place kiyaan ka bilaabina hadana sidii ku saxnaa hadana the same place sidii ku saxnaa hadana same place ee lagu hina cadaadeen oo madaxina cadaade oo waxaan ku leeyahay gabdhihii daaleen oo waxaan ku leeyahay yani shaqada aan kala wadno ilmaha sayto hadii lagu dhaha ka waran waxay naagtan sameynayso ma jirto ya waxay qabanayso malaha baar kariirad waa maxaa dareemi lahayd inta gabadho halkaas ku jirto ima qalis way dareemi kartaa wallahi xanuunkaas sayto ee gabadhaas sayto ma taqaana laakiin Ilaahay baa u fududey Ilaahay baa garab istaagay markuu Ilaahay kula jiro waxaa la yiri garab kale uma baahnid asaga kugu filan ya Ilaahay baa saa u garab istaagay ku leeyahay markii lawyer-ka friiga loo qabtay Ilaahay baa saa u la joogay ilaa uu arkay inay daacad tahay waxaa la yiri abuu dhageysa waxaa la yiri gurigan waa la gadayaa dawladda gadaysa la adama gadaysid gacantaada ku gadaysid anaga gadayna la fossel ayaa lagu dhufanayaa ma lagu dhuftay 70% ayada iska laha la yiri 30% adaa iska laha la yiri ilmaha ku soo hareen ilmahana ayada iska laha la yiri wadankan ilmaha wax kale inay jiraan ma ahan ilmaha inay hofasta hooyo laga ma qaadaa hooyada u baahinaa la yiri 19 years soo korneys ayada haysaneys gaarigeeda ku soo haraa lahay gaarigeena ayada iska laha la yiri oyaa ayada iska laha la yiri gaarigeeda kama qaadi kartid
indhuhu saa u tagtaagan marka waa taqaanii haddee yaa indhuhu saa u tagtaagan ku leeyahay ayadana farxad alxamdulilah alshukurilah gurigii waa la qabtay dowladda qaadatay sheekada saasa ku dhimatay maxkamaddii gurigii waa la gaday 70% gabartii farta laga saaray ilmaheedii fartaa laga saaray gaarigaada adaa askaraha la yiri furahaada haysa ma fahanti wuxuu rabay inuu ilmahan iyo balaas gurigii gaariga iida wadato inuu tan siiya ma fahanti gabdhow oo yacni iidana ay boorsada ay ka qaadato rabay laakiin ilaahay muu dhihin ilaahay baa ku gaab taagan waxaa la yiri ayada ay askaraha la yiri intaas ma fahanti guriga Faisal lagu dhajiyay lacagteeda 70,000 ka farta 70% geediya farta laga saaray 30% kiisa farta laga saaray gaarigeeda farta laga saaray ilmaheeda farta laga saaray way jaqaafaysaa baa helin abaa guriga kareysatay awalba waxay ahayd gabadha naarsi ahayd shaqo abalaagir isla markii way heshay ala shaqadeeda heshay ilmaheeda u istaagtay gurigeeda cusbay ku soo guureen gurigan waa la gaday mugdo abuu helo naagti guursaday guri kale oo mutaqaana kale oo galiyay naagti wadin yeer waa la kala yaacay la kala yaac ana maxay inii sheegay yaa ani maxaa idin sheegay waa xeesada ugu horeysa maxaa la yiri xumbo yaa yaqaan horta guys gabdhaha dad qaarkood aan aqaaninaa jirta xumbo waxaa la yiraahdaa geele markii la lisaay ma aragteen oo sida loo liso oo caanaha la lisaaya baa xumbo imaata marka waxaa la yiri xumbo rageed ma la maxay ahayd xiisa rageed walla Soomaali beebe kuma mahada waxaa la yiri xiisa rageed iyo xumbo geelid way baabaan xumbadu waxaa markii caanaha la liso xumbada kor soo korayso wax yar inay minid ka bacdi xumbadaas way degaysaa caanihii baa soo baxay xumbada way dhamaanaysaa nimankana xiishadooda waaba niila sheegay hadii anagoo dhalina noola sheegay ma fahanteen guys maamahaas anaga ma dhalin markii la soo saaray marka abaaheli waa kala yaaceen gabadheena ahaydna dhexda xirataan ku leeyahay haat shower ka qaato waa idin sheegay hadee bahal haat shower laga qaataan ku leeyahay yaa oo kiyaal madoon waa laga xirtaan wig le lagu wadaayo ku leeyahay sheekada way dhamaatay ilmaha aad u istaagaysaa xabad kalena ka soo gelin oo loser ilaa ka 19 years aad soo heysay saas ku gale mid kale oo loser oo caanaha inuu kula cabarbo waa u soo gelin ilmahaada just ilmaheeda gabadhaas ay masha Allah hadda may guursan dhexdaysaa ji oo siistaan ku leeyahay shaqadeeda ku tuurta ilmaheedu way u weynaadeen yaa saasay u garab socdaan ku leeyahay ninkina waa la arkay duqay ma fahanteen abuu helo waa la soo arkay wuxuu yahay dhan ilmaheena markuu aga dhamaatay yaa wuxuu hooyadood ku sameeyay way arkooyaan ma fahanti keena naagna hadda ma haysto ilmo ma haysto waxaan ku leeyahay guri karuu ku jira shaqo soo tuma waa kaliis ilaa hadda tii kalena waa kala yaaceen ma fahanti xabad cunugu kala laadiyay xabadu ugu dirkeexeen way haysatay halkii xabadkiisana waa ugu dira waa kala yaaceen ayagana waaba sheekadaas mid sheekada Soomaalida nimanka Soomaalida waxyaaba ay sameeyaan waxyaabahaas oo kale waa marka maxaad faa'iidaad Ilaahay baan kugu dhaariyay aday xiisadii hore ku wadwadiyay abay macaani iyo xalay cunto may ku siisa naagti iyo xalay maan saxan xabiibi indhihi baa wali kala haay waxaas maxay ku tartay you lose all your beautiful gaadi waxaan kule kaaga sidaran waay gabadhaasay cadownimada gabadhaasay ilaa limit okay naagaad bahashaba gabadha inta iska furtid ilmaheeda iyo gurigeeda iyo mudaysido waay haddana inta ka xidaad kood ugu tagaysaa gabadhan bal intaas kula nooleed xaasinimada aad u haysay maxay tahay sheekadeeni marka way idinku socotaa umalay horta sheekada koob shahan waa soo qaadateen umalay sheekada waa idinku socod sida tubada camal gabdho badan ay know inay ku socod doonto wada farxi doonaan ma fahanti nin walbo hadda taas kula tala jirano oo dhihi doona tan ma taqaana inta meesha ka bixiyo balas guriga yaa oo dhihi doono taas hadda ku cimil qaata wadankan ciyaar ma taalo gabdhaha guriga joogan shaqa ay hayaan gabdhaha ilmahaas ku haayo shaqa ay haysaa shaqadaas cid beed gareysa male marka maanta koos inta tagtay gabadha waligeed shaqo ma soo shaqeeyni adile beed gareynaysan ku leeyahay inta soo lacag beed gareyn oo kugu dhufana ka jaajka oo kugu dhufaa inta sano ilmo ku haysay iskool u geynaysi ma taqaan isbitaal geynaysi ku dhufanaa leh afaan marka ha isku dayin wiil Soomaali hadda ima qalaa hadda
taaha isku diin isku ceebeyni wiil horaa ku soo ceebowga marka taaha isku ceebeyni marka waxa idinka tagay walaalihii gabdhaho iyo wiilashaba dhamaantiin waa idin wada jeclaa laakiin anigu gabdhaha ayaa mataqaanaa ayaan la jiraa because waxaa ula jiraa waxyaabaha socda ayaan u jeedaa waxyaabaha socdo gabdhahaas waxyaabaha lagu haayo oo mataqaana xaq darrada ah baan arkayaa wiilaa wuxuu yidhi maalin hore adag gabdhaha lagala jirtaa waan soo dhageysto fiidiyoyaashaada waxaan arkayaa gabdhaha inaad la jirto nimankan aad garbaashays waxaan aan mataqaana aan gabdhaha ula jiraa because waxaan ogahay waxay haayaan iyo sida mataqaana loogu xidgudbo iyo wiilasha Soomaali waxay ay sameeyaan baan u jeedaa ma fahamtay wiilal way jiraan oo dulman laakiin ma badno laakiin most of them gabdhaha dulman anaga wiilka dulman waa la jiraa laakiin gabdhaha ayaa wada dulman marka waxaan u maleyn marka gabdhaha inaan la jiro wax runa sheegay that's the truth guys ma waxa been sheegay hadda ninka muxuu sameeyay is that fair ma taas in waxa ku sameeyay reerkiisii marka waxa idin leeyahay fiidiyowga ugu dheeraanayo barnaamijyo kala dardarna soo wadaayan kulay qatar ah yaa oo saa waxaan kulay kugu soconaaya shahaada iyo koobkaada mar alla markaad barnaamijkeedii soo qaada koobkaada wali waxaad dhageysataa marka ilmaha ka kala saxdaan ood booqo jirin kuma soconaaya marka kala dee yaa oo kaliya aad tahay saasa kugu socdaan kuleeyahay barnaamijkeyga hana ka iloobin markay kugu socoto sheekada dee like kan ha ka iloobin dee oo gabar walaashaan free ma malcaw ka yahay subscribe ka lacag kama waa just free way like iyo waxaan ku dhahay share iyo subscribe ka ha ka iloobin waa dhinaciina ma fahanti waxyaabo idin soo wadaa hadduu ilaahay yira waxaan idinka tagay khayr iyo baraka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh